أنا يا أبدي من مانت إذا عاد جوب جوك وحنصوب بوغضي أنا نصيب أويشتي إن أنا مانت لبك أنا هايستو أنا أوجه الله مدة بدن أيام رادين أقف جانس كان إسي مرك ورث آت أي أمهاتين وناجان فرصة دان قالي إسيان مدة إذا لبعت ولا ليال أمد الصومالية أمد المسلمين تمالك استيجوا وحنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفك كل وحنا هاي أبدي بعتيسن أو مجلس السليرة صالح سني يوسف علي كنا المجال المقدشو dib oo aad muddo 9 sano aan ku hurdi waay aan ka harsi waay ay haysto waxaan ahay aaba dhiban muwaadin Soomaaliyeed taariikh xun oo waxa igu dhacday ama i haysato qof kasta oo muslim hadii loo sheego dabcan jid oo asii gilgilayso Allahumma istaan marka walaaliya aniga oo hadda ka hor xabsiga Sacuudiga ku jiro tarxiil taariikhda markii ay ahayd 2010kii ayaa waxa igu dhacday wiil yar oo 8 bilood jiro gabar yar oo hal san i bar jirto ayaa tarxiil kala soo galay markii la qabtay xabsiga Sacuudiga la ii galiyay ayaa waxa la igu yiri meeshan xabsiga sida xaqiiqadan waa run xabsiga waa meel weyn oo nadaafadiisa aysan wanaagsaneyn oo uraysa waaye dabcan waxa la igu yiri ilmahan yar ka ah waa la igu sawir aniga iyo labadii cunug wiilkay iyo gabadhiisa aan u hayo ayaa la igu sawiray waxa la igu yiri ilmaha yar xanaanada meeshan waa xabsi weyn ilmaha yarka lagu ma hayn karo dabcan aniga markii waxaan ahay nin maxbuus ah Allah wixii lay amro waxaan ku qasbanay inaan qaato waayahan ilmihii wiilkii oo 8 bilood jiray ee gabadhii sanad iyo barka jirtay waa laga wareejiyay meel waxa jirta xanaano caruurta yarka lagu hayo marka aabaha oo wado ilmaha because aniga gabadha ilmaha iyo dhashay daruuf jirta aawadeed ayaa Yemen ayaa isla joognay ilmihii ana waxa ku wadhi ku ballan inaan Soomaali aagay cala daruufta nolosha meesha ayaan cajibi weysay inaan ilmahan Soomaali aan geeyno kadib الرزق على الله أو إلهي الرزق أدورك إلى أورثنا المهم مركز اللي جربت السيد مدة مركز ماشي أنكو جوري وحاد عاد مالها كمد مركز اللي جار حل ديارات بحيث أيال مقاعد كعبس يكون جرو قف أيالو يرينا يا وحال يوير صالح سنة يوسف علي آبي كعنت أنت يا جي وحال يدي ورخد يعني أنكو بحي أيال يدي بي بس وحاد عضي warqadii waxa arkay labadii cunug iyo gabadheedii wiilkii sawirkeeda oo arkay wiilkii oo sawirka laga jeexay bas waxaan dhahay walaalayaal maxaa dhacan wiilkii aabay dabcan waa taqaanin maxbuus hadalka lagu yiraahdo qaadanin cid aabanta waxa ka qaadan karti ma jirto alaa hal cunugay way iska dhidhiibay saddex askari ay ahaayeen hebel way wada qoslay hebel cunuggiisa aabay hebel cunuggiisa aabay dabcan abar ay indheey ilmo ka imaadeen إلى وحوق الدروح عندها مرك أنا يهلب كيجا أما عنق جيجا أو نول إيجاري من أن كهينين هل كان إن نكبحه جوان كي ما هي بس وحيقول ده المرك هذه أي كافر أنت واحد دي بحيث وأنا بحذا هذيك أنا حبسي أصون قطع حبسي أيام كلها بتنبحها يعني هاي مدلوا وطن عش يا حبسي كله أويناي وبقف بنا آذنا ويرحمه أنوي بالقدرة الله لبعطن عش مركز حبسي وكل جو أيان حساب تمي وحن راي ما أنت عنق جالان أود كحق بدنا إلهي هن أيها هاي سطو بس هذا إلهي أقلا يوم الأيام مالي مالمها كمية عنق جاي بإذن الله كريم وهلس أيان يدك استي عنق أيا شون إمتى يجدعي waxaan marka cunugta ayaa laga haystaa yeesan dhicin aqliga qof saalax waa in aqliga adeegsataa cunugtan hadda qatar iyaga sii sugan yeesan cunugtan kaaga dhiman meesha aniga walbahaarsan on raali ka ahayn ayaa goobta diyaaradda oo laga raacaya waxaan ugu soo qaaday baska markii ugu soo qaaday askari ayaa baska la socdo oo qofka markay dad diyaaradda ay raacay ilaa diyaaradda qofku simaayo diyaaradda irideedan waxa taagan askari kale ayaga sawirkii ayaga way jeexeen in saddexdeen ayaa sawirka ku nagala qaaday sawirka wiilkayga way ka jeexeen ayaga waxay ii keeneen aniga iyo gabadheeda oo kaliya ay sawir keeneen laakiin ayaga waxay iloobeen qadar Allah ayaa socotay waxay iloobeen saddexdii magac ilaa meeshan Salmo Saalax Sanay iyo Salmaan Saalax Sanay iyo Saalax Sanay saddex qof bartaan ku qoran ayaga waxay iloobeen marka magaca meeshan ku qoran ayay iloobeen sawirka wiilka marka jeexeen ayaa askari diyaaradda agtaagna wuxuu ku yiri ورنيه أسكرية كل أيوة وحكي ورنيه ماشان سدح مقعيا كقرن لما قف أيانا سقطه ما يقف كسدح سلمان صالح سنة آبا لقيري
askarigii ayaa la qabtay garbkii oo diyaarad ag taagna ayaa gacanta la qabtay waxaa gooniyaa loola baxay allahu aclam waxa ay dhaheenna wax ayaga wax isku sheegeen okay ayay dhaheen aniga si ayaa diyaaraddii lagu saaray xaqiiqadii waxaa dhacday diyaaradda markii ay sii kacaysay ilaa maa hawada ay ka gasho waan fiirinayay meesha cunugeyga leegaga reebtay waan fiirinayay waxaa laakiin niyaddeeda ay ku qorneed wamal xayaati dunya ilaa mataaca alquruur allahay adduunka inta lagu noolaanayo wax yar ah haddii aan noolahay inaa cunugey oo xalaal yahay dhiiggay hilibkii waxaa ogaa maalmaha ka mid ah inuu ilaahay ii soo yeerin doono waan fiirinayay ilaa hoos diyaaradda ee ka kacdo waan fiirinayay bilqudratillah waddankayga ee imaaday isla xilligaasna awood waan yeela waayey qof wax ii qabatay because aabbo waxaan ahay aad xaqiiqada daruufaysan yemanaan ka imaaday wax shilin oo isku furtay markaa muqdisho aan kasoo degaayay $1 jeebkayga kuma aysan jirin waalidiinteed ayaa u imaaday xaqiiqadii waalidkayga aabbayga waa oday 80 jir ah hooyadeen waa waayeel aaba wiilkii markay dhan aab neefsadeed ayaa iqaabay waxaan dhahay aaba wiilkii wuu iga geeriyooday because haddaan dhaho aaba wiilkii iyo hooyo aan u sheego xaqiiqada waalidkayga waalidka daruufaysan ay ahaayeen ma aysan awoodin maanta inay raadiyaan way walbahaari lahaayeen way murugoo lahaayeen balse waxaa isdhaha saalax adaa nin rag ah ninka raggana adduunyada wuxuu u joogaa rafaad iyo raaxa intaba u joogaa waxaan dhahay marka adiga le ana nafsadayda ilaa xilligaas 9 sannadood ana nafsadayda iqaabahay aniga nafsadayda ku qarsanay waxaa dhacday inaan iska laabto aan laabto waxaan u laabtay yemen xamar xoogaa markaas maasha allah tabaaraka allah maanta dawladda Soomaaliyeed waxaa leenahay xaqiiqada lagu faani karo ayaa leenahay ma aysan jirin xaaladda maanta muqdisho markaas xilligaas waxay ahayd nusna dabcan waa iska warqabnaa inaan dabcan waa qof kasta Soomaali uu ogyahay muqdisho 2010 waxay ahayd dabcan ayada kala bar xoogaa problemkeeda aad u badnaa waan laabtay waxaan ku laabtay yemen anigoo markaas salaada tukado alla bari jiray dhihi jiray cunigeeda hadduu hilibkaada xalaal yahay maalin buu ilaahay ku soo yirin doonaa meesheeda ayaa iska joogay alxamdulillah gabadhii xaaska ilmaha irash waxay u dhahay saalaxo wiilkeeni mee waxaan dhahay wiilkii qadar alla ayaa nagu dhacday qadarta allana qof kasta way ku dhacaysaa annaga waxaan nahay bini aadan daciifaan nahay amar alla ayaa nagu dhacay ubadkaas shalay ilaah ayaa wiilkaasna siiyey insha allahu tacaala bedelkiisna ilaah noogu gargaaraya ha isdhiibin ha ismurjin niyadaada qabowj ayaan gabadha xaaskeyga ooga dhaadhiciyay inay taariikhdaas igu dhacday alxamdulillahi rabbi alcaalamiin xilligaas kadib 5 caruur ilaahay sii maasha allah tabaaraka allah iyo gabadhii hore Soomaaliya oo kale 6 caruura marka walaalayaal waxaan ahay aabba dhibaataysan oon hal habeen 9 sano oo dhalato aan hal habeen hurdo raacal aan hurdin maanta ma awoodo inaan baxo diyaarad aan hadda maanta awood aan lahaa inaan baxo diyaarad aan raacayo Sacuudi tagi lahay ayaan dhihi lahay safaarad in loo kasta ayaan geli lahay waxaan dhihi lahay maanta cunugii ayaa iga maqan laakiin ma awoodo maanta subaxdii ayaan soo kacay ilaa 3 saac 4 saac mooto laba lugaaley ah dabcan waa ogtihiin nolosha dabcan qofka doorsan waxba haysan rizq xalaal si kasta oo kugu soo galo inaad ku raadisaa mooto laba lugaaley ayaan wataa ilmahayga subaxdii ilaa 4 saac 4 door 5 door waxaa helaya ilmahayga uga raadsadaa waa imaada waxaan wareegaa xafiis kasta waan garaac alxamdulillah maanta ilaahay wuxuu ii saalay idaacadda goobjoog maanta madaxooda kor ahaato way jirtaa maanta idaacado badan oo muqdisho aan tagay oo isbuuc idaacado badan oo muqdisho aan tagay way jiraan xaqiiqadii aan qof bini aadan aan dulmin waxa ilaahay igu og yahay qof kasta marka uu wuxuu igu jawaabay ilaa aan daruuf ay iga muuqato balse qofka doolibisan yahay gaari oo wato dabcan waa la soo dhaweynaa waa ognahay Soomaaliya kalimahan adduunka idil saas ka jirtaa balse qofka daruufaysan dabcan waa ogtihiin waxa wax ku taraa nin oo dhiig Soomaaliyeed amba oo ku jiro dhiig Soomaali ama damiir walaatinimo ama damiir muslimnimo oo ku jiro maanta xaaladda ku suganahay ayaa og marka hore ma hadda Allah ay u sugtay marka labaad idaacadda goobjoog ilaahay waxaan ka baryaa inuu dib iyo cadow ka haayo biidnillaahi kariim sharn ilaahay ma tusaayo marka walaalayaal cunugay waa ka sawirkiisa waxaa la yiraahdaa Salmaan Saalax Sani waa wiil Soomaaliya nasiib darradii adduunka qof bini aadan ku dhacdo tii ugu xumaad ayaa haysato 8 bilood asigoo jiro ayaa la reebtay 4 darbi xabsiga Sacuudi Arabiya tarxiilka ayaa awood leh igaga reebtay 8 bilood 4 darbi dhaxdiisa la geliyay ayaa teer iyo maanta 9 years 9 sano ayuu cunugeyga waxbarasho la'aan mustaqbal la'aan dib la'aan ayaa haysato please haddii uu jiro qof muslim ah amba qof dhiig Soomaaliyeed leh marka ugu horeysa waxaan halkaan la hadlayaa aabbaha Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maasha Allah madaalaha maskiin umciinaha meel kasta ay joogaan ra'iisul wasaaraheena Xasan Cali Khayre walaha wasiirada ra'iisul wasaarayaasha inta Soomaali oo maanta dhiig Soomaaliyeed oo ku jiro cunuga waa cunugeeni ma ahan aniga oo kaliya inaan aabba aan u hay
qof oo anfacaya allah iyo rasuulkiisa ayaa og waa nin Soomaaliya waa maanta nin aan awood u leeyahay ficiisa waxay baranooyiin ficiisa maanta heerka ay marayaan aan awood u lahayn waay ma yaqaan aabihii hooyadii ma yaqaano wadanka uu dhashtay ma yaqaano gacanta wuxuu ugu jiraa awood ilaahay oo dabcan ilaahay aan ahayn awood bini aadan ayuu ku jiraa walaalayaal haddii lay dadaalo Soomaali ama qof muslim meel kasta adduunka aad ka joogtaan waxaa idinka baryayaa in aad igu caawisaan sida wiilkayga habeen murdo hooyadiin ilaa hadda nolol igeera ay u dhaxaysaa laba miir ay iga tahay marna ayadii ayaan soo fiiriyaa hooyada waxay cuna leedahay ilmihayga ayaan u raadiyaa marne cunugayga ayaan raadiyaa anoo tabar daran oo maanta awoodin in aan xataa gaari ama wax inaan raaco aan meel ugu tag ma awoodo saacadaas ay la hadlaayo mootabel waali ayaa wataa ma haysta xataa ayada xataa shidaalkeeda wiil saaxiibkay hal doolar bar hadda aan ka dansadin marka please ma ahan meesha waxa uu soo fadhiistay inaad dabcan qofkan guriraas aaba dhibaataysan ayaana hilibkii ayaa iga maqan waxa idinka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed hadaad tihiin in aad maanta iga seexanina maanta qof waliba wiilkiisa og yahay ducaa hal habeenka maqaya ama oo ka soo dhaco dhibaatada oo mara waa wada ognahay marka waxa halka ku soo gabagabeynaya aaba dhibaataysan ayaan hay yaan leega seexanin nin kasto oo arka muuqaalkan daawado ama Facebook ka akhriyo please ha share gareeyo waa walaalkiina waxa maqan cunug saqiir ah maanta wax barashadiisii 9 sanadood 4 darbi dhaxdiisa qof bini aadan oo muslim arxama aan lahayn daruuf ayaa ka muuqato funaanadaas u jeedin maanta asiga eeyaha iyo mukalaalaha oo xabsiga raashin ku cuno hal meel ay isla seexdaan maanta cunug nin ogolaanaya ma jirto muslim gaal ahaado wiilkiisa oo dhibaataas u nool waxa idinka codsanayaa please dad muslimiin aad tihiin cunugayga in laga seexanin sawirka nik arko inuu share gareeyo please ala caawiyo aaba dhibaataysan ayaa ahay muhiim aan dhaqaale in lagu caawiyo muhiim maahan laakiin waxay muhiim in la soo duceeyo waxa muhiim ninka aaba dhibinto ku nool in la soo xariiriyo telefonkii arki doonto idaacadda goobjoog ayaa Facebook idinku soo qori doonto idin baryaa cunugayga la raadiyo yaa laga seexan mustaqbalkiisa waa lumay laakiin hadda waa ka gaari karaa haddii la soo badbaadiyo cunugayga qof muslim oo caawi ma waynayo laakiin hal laga soo bixiyo 4 darbi dhaxeeyo